أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم subaxan saakay ugu horeyn waxaan salaamayaa dadka muuqaalkayga hadda aan diyaarinayno daawan doona oo jooga gudaha dalka Soomaaliya iyo dhammaan qaaradaha adduunka oo aan ogahay in uu gaari doono iyo dhammaan laamaha dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhamaantiin marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh muuqaalkan saakay waxaan u duubay inaan ku qanciyo oo iiga baahan qancin dad badan oo taageerayaashayda iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo samaha aad u jecel iyo dawladnimada ayaan ugu talagalay in ay fiirsadaan qof ahaan waxaan ahay Khadiija Maxamed Diiri mas'uuliyad ahaan waxaan ahay xildhibaan waxaan ahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya sida la wada ogsoon yahay ama aad ka aragteen baraha bulshada aniga waxaan hore u fiirsaday idinkuna aad ila fiirsateen 4 bishan Febraayo wasaaradda caafimaadka oo garoonka aadan Cabdulla Cismaan الله ونحرست جرون كأذن عدة بارس عافمات كبلاوي سؤال أياك تاجن ميشاس أو سيدي وأكيد أما وأكاين شغالها إذا قاترت عافمات ك بارس تاس عافمات كبلاوي جرون كأذن عبد الله اسمه sidoo kale dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dadkeeda wasaaradda caafimaad iyo shaqaalaheeda iyo dhaqaatiirteeda nooma soo gudbin oo ma ogin baraha bulshadana lagama sheegin in coronavirus Soomaaliya laga helay bilcaks waxay xaqiijiyeen inuu sandalka ka jirin waxtaa iixiga muuqaalka imaashahayga laga soo gudbiyay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa media advisor-ka wasaaradda igala shaqeeya la taliyaha wasiirka arrimaha warbaahinta iyo cameraman-ka ila shaqeeya muuqaal ahaan iyo sawir ahaan way ila wadaagaan iyo agaasimaha waaxda ICT-ga waxa howlaha wasaaradda ku saabsan ee la dhigayo page-ka wasaaradda page-kayga gaarka iyo Facebook-kayga waxaan ku faraxsanahay sida ay uga shaqeeyaan waaxda ICT-ga agaasimaha Ayub iyo la taliyaha hayga arrimaha warbaahinta oo qabiir asagana Maxamed Shuuri iyo jiro yare cameraman-ka on ku qanacsana aniga ka wasiir ahaan waxa wafdiga maalinta imaashaha dalka nagu soo dhaweeyay garoonka wasiir ku-xigeenka wasaaradda xildhibaan Axmed Cumar Islaaw iyo agaasimaha guud iyo waxyaha la taliyaasha iyo mudanayaal kale oo ka tirsan golaha shacabka garoonka iyo wixii ka dhacay sida la wada ogsoon yahay calaamadaha ay wateen dadkaas waa
shaararka ay gashadaan injineerada dhismaha ama markii xaalad degdeg ah ama masiibo dhacdo ama gurmad u jiro mar haddaysan wasaaradda caafimaadka wax caabuq cudurkaas la sheegay uusan dalka ka jirin mar haddaysan xaalad degdeg oo caafimaad jirin bilowgii 4 Febraayo sida baraha bulshada laga arkay ay ahayd dhaqaatiir iyo shaqaale u tababaran in garoonka ay ku bilaabeen maxaa isbedelay taas wasaaradda weydiinaysa iyo shaqaaleedii dhaqaatiirteeda ma baraha bulshada kaliya ayaa disaankaas la tusay hadiise loo baahan yahay munaasab ma ahayd meesha aan ku soo degnay aniga kulay waxaan ugu horeeyay dadkii ka soo degay diyaaradda cagaha dhulka markaan dhigayna waxaan dhagahaygu ku dhaceen horteydana ka muuqday laba nin oo idhahaaya mid u kaadi wasiir iyo wasiirka ka leexo iga leexoon baan iri wax xaalad kale oo aan isu sheegnay ama taagnaa ma jiro sharciga cidina kama sareyso weliba markay xaalad caafimaad daran iyo cudur halis la sheego ogaada naf walba naftaada dadka jecesha in dalka iyo dadka la dhowro oo la isbadbaadiyo waxa ka horeeytayda in anigu badbaadiyo waxa taas si wehliya muqdisho waxaan ka baxnay 20 bishan Febraayo iyada waxa safarkaygu wehliyay waaxda maamulka wasaaradda laba si hayaal agaasimayaal waaxid iyo ikraan oo hadda naga maqan oo waaxda dhalinyarada iyo saadaq oo waaxda maamulka dhinacan bidix waxa iga fadhiya la taliyaha wasiirka xagga arrimaha dhalinyarada injineer Fahad Ali Xasan afarteenaas ayaa safar ku tagnay dalka Turkiga waxaana safarkaas ka dambeeyay azumaad rasmi oo aan ka helay wasiirka dhigayga ee dalka Turkiga dhalinyarada iyo isboortiga mudane Mohamed Muharram iyo azumaad rasmi aan ka helay madaxweynaha ciyaaraha dhaqameedka isboortiga adduunka Sayid Bilal Erdogan soo dhaweyntaas rasmiga waxay nooga bilaabatay aan dalka Turkiga ku tagnay magaalada Istanbul kulanka madasha saddexaad ee caalamiga ee ciyaaraha dhaqameedka isboortiga adduunka oo ka dhacay caasimadda saddexaad ee dalka Turkiga diyaaradii halkan aan ka raacnay soo dhaweynteena waxay ka bilaabatay magaalada Istanbul aniga iyo wafdiga waxaana ku yaala garoomada dunida ugu waaweyn garoon kamid dadka Turkiga qiyaasta iyo cadadka dadkoodu waa 84 qiyaasta cadadka dadka Turkiga muhiim uma aha wasiir wadan kale ka yimid haddii xaalad caafimaad ay jirto wax coronavirus oo nalka baaray ma jiro magaaladii saddexaad ee shirku ka dhacayna sidaas la mid ah loo ka soo dhaweeyay iyadana wax coronavirus oo jira ma jiro sababta ay u jiri weysay marka Soomaaliyeed is weydiiyeen anigu waan ogahay waan idin la wadaagay jawaabtu waa dad badan oo Soomaaliyeed ayay Turkiga uga xog ogaalsan yihiin dalka Soomaaliya waayo number 1 meelaha ay gacanta ka geystaan waa gurmadka iyo gargaarka caafimaadka xog ogaal badan ayay u yihiin qofka Soomaaliya ka imaanaya inuusan qabin wax coronavirus waa sida aan isleeyahay oo haddii ay shaki qabaan naguma dhaafeen wasiir wadan kale ka yimid madasha aan tagnayna ugu yaraan 45 ilaa 50 dawladooda ku casuumna
oo aan kaligeen ma ahayn dad yow ka socdo intaas waxa ay nooga bilaabatay soo dhaweyntii iyo sii socodkii dalka Turkiga aan ku tagnay sidaas si la mid ah ayaana garoonka Antalya iyo Istanbul naloo ka soo sagootiyay ani iyo wafdigayga waxaan rabaa markaa kilibkan ama hadalkan inaan madaxda garoonka xusuusiyo madaxda hay'adaha amniga garoonka xusuusiyo madaxda caafimaadka iyo shaqaalahooda iyo dhaqaatiirtooda garoonka aan xusuusiyo ugu horeyn inay wax ka bedelaan qaab dhaqameedka shaqaalahooda taagan muraayadii dalka laga eeganaa waayo waxaan soo degay iyadoo sidaas laba ruux ay taagan yihiin dhagaygana aan ka arkay horteydana aan ka arkay joogso u kaadi iyo wasiirka ka leexo automatically sida shaqadayadu ay tahay waxa taagnaa shaqaalihii u taagnaa waan ka leeyahay anna waxaan ku eri maadaama wasiirkii koonfur galbeed ee dhalinyarada isboortiga uu wehliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ayaga laftirkooda aan lagu wargelinin wasaaradii in markay wasiirka soo degayso ama qaab loo sameeyay taandhooyin dadka lagu leexiyo ama astaan kale aysan jirin dalkana uu ka jirin masiibo iyo gurmad degdega qaabkooda in ay wax ka bedelaan sharciga cidna kama weyna waliba nafta iyo ruuxa markay timaado qof walba tiisu ka jecel yahay oo anigu tayda aad baan u jecelahay shaqaalaha iyo dhaqaatiirta marka diyaar garowgaas ay dalka afartii Febraayo waad wada ogtihiin garoonka waxa ka dhacay baraha bulshada ku wada jirtaa hadda dib ugu noqotaan waad arkaysaan shaqaale iyo dhaqaatiir caafimaad oo u diyaarsan xaaladaas inay baaris ka bilaabaan oo gamiishka cataa wata oo qalabkoodii wata dadka meesha taagnaan waad arkaysaan maca askartoodii waxa ku jira dad baasan ku xirna san xirashaduna baaris caafimaad ma shakhsiyaad iska socdo magaalada hadda sanka iska xirto ka hor imaanay ani waa xiran kara xirashadu marka inay baaris caafimaad saashan xirashadu ma aha diyaar garowga waxa laga bedelo qancintaydan maanta marka waxaan rabaa wafdigaygana inay ogaadaan kana warqabeen kamarada iyo dadka ka shaqeeya iyo dadka wasaaradda ugu madaxsanaa wasiirka dhalinyarada isboortiga waan u mahad celinayaa xildhibaan Axmed Cumar Islaaw sidoo kale wasiirka dhalinyarada isboortiga dowladda goboleedka koonfur galbeed mudane Cali Dhuux waan u mahad celinayaa agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaradda iyo mudanayaashii goobjooga ka ahaa soo dhaweynteena waxa kaliya aan rabaa hadalkaygan inaan ku soo gabagabeeyo haddii ay ahayd Febraayo afarteedii qaab ahaan maalin mujtamaca un la tusona maalintaas ku ekaato hadday ahayd baaris caafimaad loo taagan yahay in la xaqiijiyo dunida waxa ka jirana ha loo taagnaado sidii 4 Febraayo maalin walba ana loo diyaariyo dadka rakaabka iyo madaxda iyo dadka soo degaayo ama Soomaali ama ajnabi qaab ku haboon oo ka duwan waxa meesha hadeer ka muuqda jeceliya inta magacayga jecel jeceliya inta muuqaalkayga jecel mahadsanidin dhamaantiin